bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum daawadayaal kuna soo dhowaada wararka dhambaalka wararka qodobada warkeena aad ku daawan doontaana waxaa ka mid noqonaya gacanka hadalka iyo buuqa ka dhacay golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya. waxaan idiin soo gudbin doonaa kolkii hore sida buuqu u bilowday iyo sidoo kale gacanka hadalkii ugu dambeeyey ee dhacay hubka iyo gaadiidka dagaal ee culus ee ku biiray wejiga saddexaad ee dagaalka ACC iyo Somalilan halkii ayuu ku dhammaaday wejigii labaad. waxaan idiin soo gudbin doonaa sida gaarka ah ee guulaha looga gaaray kaas dalka ka mid ah dalalka ciidamadu ay ka joogaan soomaaliyana mar saddexaad ayuu xasuuq ka geystay soomaaliya. meydadka dhulka daadsan iyo sidoo kale dhaawacyada oo markaan isbitaalada loo soo daabulaya ayaan idiin soo gudbin doonaa. waa kuma madaxa qaraxyada iyo sidoo kale farsamooyinka culus injineerka weyn ee la duldhigay $5 milyan uu bixinayo iyo sidoo kale taliyaha Africom oo ku sugan magaalada Muqdisho si arrintaasi looga dhabeeyo. ma lacagtaasi si toos ah ayaa muwaadiniinta loo siinayaa iyadoo aan la marsiinayn dalaaliin iyo dhinacyo kale? halkan ayaan xogta idinkugu soo gudbin doonaa. muuqaalka sheergaree oo ku xirna page-ka dhambaalka wararka lana wadaag saaxiibada. anna ku bilowna buuq xooggan ayaa ka bilowda maanta fadhiga golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya, waxaana jira 3 ujeedo oo waaweyn oo dhiirigelinaysa buuqaasi. waxaana arrintan u muuqataa inay tahay mid aan ku saabsanayn hindisa sharciyeedka laga doodayo iyo sidoo kale fadhiyada baarlamaanka doodaha horyaalla ee sharci ee la doonayay xildhibaanadu in ay dood shaqsi iyo sidoo kale mid guudba ay ku yeeshaan, iyadoo weliba arrintaasi ay tahay mid ka madax bannaan oo dabada ka riixaysa xildhibaanadu in hadallada qaarkood ay dhibsadaan halka kuwo kalena gacanka hadalka iyo buuqa uu la degdego. sida ay muujinayaan xogaha aanu ka helayno xildhibaanada dhexdooda waxaa jira arrinta dagaalka ka socda Barawe iyo sidoo kale arrinta la xiriirta muddo kororsiga wax ka beddelka dastuurka iyo sidoo kale tabashooyinka la xiriira in ra'iisul wasaaruhu uunan xafiiska sii joogin. saddexdaas arrimood oo ay ku soo biirtay arrinta gobolka Gedo oo xildhibaano badan ay doonayaan in bulshadooda ay istusaan islamarkaana ay muujiyaan in ay gobolka matalaan iyagu oo aynan ahayn shakhsiyaad Axmed Madoobe uu jeebka ku sito si wareegga labaad haddii doorasho dadban la aado aynan u waayin codka, xitaa haddii doorasho kale oo la aadayo oo qof iyo cod ah aynan u lumin sumcaddooda sidoo kalena ay u helaan codka. waxaana arrintaasi ay tahay midda xilligan soo dedejinaysa in gacantu ay noqoto waxa ugu habboon ee laga hadlo marka la joogo baarlamaanka. waa markii saddexaad oo xildhibaanada golaha shacabka buuq xooggan uu haraynayo fadhigooda, islamarkaana waxaa sidoo kale la soo tabiyey in xildhibaanada buuq uu dhex maray kolkii la isku dayay in fadhiga baarlamaanku uu soo ilaado islamarkaana doodaha laga gudbo qaarkood in xitaa ay isku ballansadeen bannaanka, islamarkaana xildhibaanada ay hadalladu iskaga xumaadeen. ugu dambeyntii ay ku ballameen in bannaanka ay ku kala cadgoostaan. weliba waxaa saacadihii ugu dambeeyey la soo celcelinayay magaca qabaa'ilka, waxaana jira xildhibaano u arka in ayaga las iyo sahayo islamarkaana ay yihiin dad aan dadka ku awood ahayn balse u baahan in awooddooda ay dadka tusaan, iyadoo weliba arrintaasi ay tahay magacyadii iyo sidoo kale heerarkii iyo awoodihii la isku aqoonsaday dagaalkii sokeeyey intii waddanka uu ka socday. beelihii xilligaas aan hubaysnayn ee aan muuqan jirin xilligan weli waxay yihiin kuwo yeesan, balse hubkooda iyo gaadiidkooda iyo waxooda ay dagaalsadeen ayaa u yeelaya xaniiyo labaad, islamarkaana xilligan waxa ay doonayaan in ay tusaan dadka awooddooda. dagaalka Barawe ayaana ka mid ah arrimaha xilligan ee keenaya xasaasiyadaasi, islamarkaana ka midka ah awood muujis ka socda. magacyada qabaa'ilka ayaa saacadihii ugu dambeeyey si weyn looga ortumayay baarlamaanka gudihiisa, weliba 2 qabiil ayaa si toosa looga maqlayay, kuwaas oo xurguftooda iyo awooddooda marnaba aysi soo gaarin tan iyo intii dagaalada sokeeye ay waddanka ka socdeen. Kenya iyo sidoo kale Uganda iyo dowlado kale iyadoo ciidamadooda ay doonayaan inay ku soo daabulaan dalka ayaa waxaa soo ifbaxaya in ciidanka Afrikaanku ay markii saddexaad xasuuq ka geysanayaan gudaha qaybo ka mid ah gobollada ay ku sugan yihiin. ciidanka dalka Uganda ayaa sii wada argoosiga ay ku sameynayaan shacabka Soomaaliyeed, waxaana saacadihii ugu dambeeyey dhacay mid ka mid ah weeraradii ugu cuslaa ee ay la bartilmaameedsadeen dadka shacabka. waxa ay bartilmaameedsadeen goobo ay ku tuhmayaan in tiro badan oo qoysas shacab ay ku sugan yihiin, waxayna madaafiic ooda kaga qaadeen deegaanka Bariire ee gobolka Shabeellaha Hoose, halkaas oo ay ku dileen qoys ka koobnaa 6 ruux, kuwaasoo dhammaantood noqday dhaawacyo liita
isla markaana ay ku jiraan aabbo iyo 3 carruur oo dhalay, iyadoo weliba hoobiyaashu ay ahaayeen kuwo si toosa loogu garaacayay goobaha ay ku tuhmayaan dadkaasi. 5 ruux ee isku qoyska ah iyo sidoo kale shakhsiga kale ee asna ku sugnaa goobta ayaa waxaa loo daabulay goobo caafimaad, iyadoo weliba xaaladoodu ay liidato. Ciidamada Midowga Afrika, gaar ahaan ciidanka dalka Uganda, ayaa horey waxay xasuuq kaga geysteen duleedka degmada Qoryoole ee gobolka Shabeellaha Hoose. Waxay sidoo kale dadku xasuuqeen deegaanka lagu magacaabo Buulamareer ee ay saldhigga ku lahaayeen, halkaas oo ay ku dileen dad shacab oo aan waxba galabsan oo ay ku jiraan dumar iyo carruur. Waxaana sii soconaya argoosiga ay sameynayaan ciidanka dalka Uganda, maadaama in ka badan 100 askari looga dilay qaybo ka tirsan koonfurta Soomaaliya, gaar ahaan saldhiggoodii ay ku lahaayeen deegaanka Buulamareer ee gobolka Shabeellaha Hoose. Dhaqdhaqaaqyada ciidan ee ka socda gobolka ayaana weli ku wajahnayn in Kenya ama Uganda ay gacmaha ka qabtaan dhibaatooyinka ay u geysanayso shacabka Soomaaliyeed. Iyadoo Uganda ay dadka xasuuqayso, ayaa dagaal waxa uu ka socdaa degmada Baraawe ee gobolka Shabeellaha Hoose, halkaas oo milatarigii iyo sidoo kale ciidanka daraawiishta koonfur galbeed ay isku hayaan, isla markaana ugu dambeyntii arrintu ay isku xuubsiibatay qabiil iyo sidoo kale cidda markii horeba maamuli jirtay degmada Baraawe ama deegaan ahaanba u badan oo markaan hubkooda iyo sidoo kale qalabkooda doonaya in ay bannaanka soo dhigaan si ay u difaacdaan magaaladan ay koonfur galbeed u aqoonsatay xarunteeda. Dhanka kale, haddii aanu eegnana wejigii 3aad ee howlgallada dagaal ee u dhexeeya SSC iyo Somalilan, waxaa markaan ku biiraya gaadiid cusub iyo sidoo kale hub culus, iyadoo weliba la qorsheeyey madaafiicda noocyadooda kala duwan, kuwaas oo noqonaya kuwa daqiiqadaha gaarka ah loo qabto isla markaana saldhigga Gooja Cadde soo afjara. Waxaa markaana hubka culus ee ku soo biiray isla markaana uu hogaaminaya Cabdimadoobe ka mid ah hubka culus ee gantaalada, iyadoo weliba qoriga BM-ku yahay mid si weyn guud ahaan looga soo aruuriyey qaybo badan oo ka tirsan deegaanada Puntland iyo bartamaha Soomaaliya. Wararkii ugu dambeeyay aanu helnay ayaa muujinaya in tirada hubiyaasha sidoo kale saacadihii ugu dambeeyay ay ahaayeen kuwo beecintoodu ay ahayd mid si weyn looga gurayay meelo kala duwan oo ka tirsan gobollada koonfurta iyo bartamaha iyo xitaa waqooyiga iyo qaybo ka tirsan dalka Itoobiya. Ugu yaraan 20 hubiye ayaa la xaqiijiyey in la safi doono duleedka deegaanka Gooja Cadde, iyadoo sidoo kalena BM-ku uu yahay midka kaliya macalinka ka noqonaya aaggaasi, isla markaana noqonaya korjoogtaha guud ee markaan loo xilsaari doono hawsha dagaalka ee saldhigga Gooja Cadde. 20 hubiye oo mar walba ay afkooda ka baxayso 20 madax ama 20 madfac iyo sidoo kale qoriga dhumaha badan ee BM-ka ayaa noqonaya kuwa rajada weyn laga qabo in ay boor iyo siiga ay ka kiciyaan saldhigga Gooja Cadde iyo sidoo kale goobaha ku teedsan, isla markaana ciidanka Somalilan ku qasbi kara inay si iskooda ay kaga baxaan saldhigga marka xaaladdu ay sii cuslaato. Cabdimadoobe oo howlgelinaya jamhadaha SSC ayaana markaan u wareegaya qaybta madaafiicda. Waxaa intaasi sii dheer sidoo kale in la miineeyo jidadka iyo sidoo kale isku gooshka goobaha fududeynaya, halka SSC ciidankeedu ay u badnaan doonaan kuwa rafta iyo qardajeexa masiiya gaadiidkooda dagaalka, isla markaana ka leexda wadooyinka. Marka laga reebo tiro dhowr waddo ah oo la cayimay isla markaana halkan aanan ku baahin, kuwaasoo loogu talagalay in ay maraan gaadiidka gurmadka degdega ah iyo sidoo kale gawaarida kolayada ah ee is doonaya in ay xoojiyaan ciidanka ku sugan jidaha hore ee dagaalka ee dhinaca galbeedka ayaa noqonaya meel guud ahaanba la xiro wadooyinkeeda, isla markaana aynan Somalilan heli doonin fursado ay ku marto wadooyinka ay iskaga gurman karaan ciidamadu si guud ahaanba loo soo afjaro dhaqdhaqaaqeeda. Dhanka kale, haddii aanu eegnana $5 milyan oo dollarka Mareykanka ayaa markaan madaxiisa la saaray injineerka weyn ee farsamada qaraxyada qaabilsan isla markaana dadka ku halakeeya gobollada koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya. Dowladda Mareykanka ayaa ku dhawaaqday in saraakiisha sarsare ugu horeeya sarkaalka madaxa qaraxyada qaabilsan sidoo kalena ah macalinka looga dambeeyay injineernimadaasi ay yihiin kuwo markaan wajihi doona tallaabooyin degdeg oo wasaaradda cadaaladda iyo sidoo kale waaxda maaliyaddu ay iska kaashadaan, iyadoo weliba Cabdulaahi Cusmaan Maxamed oo loo yaqaano injineer Ismaaciil oo markaana wajihi doona howlgalka ugu cuslaa Mareykanka iyo saaxiibada kale ay qaadayaan. Madaxiisa ayaa la duldhigay lacagtan, waxaana si gaara u doonaysa waaxda cadaaladda degdega
ee doonaysa inay gacanta kusoo dhigto guud ahaan wixii macluumaad ah iyadoo malaayiintaasi doolar ay qaadanayso ciddii soo basaasta. shabaab ayuu u qaabilisan yahay qaraxyada noocyadooda kala duwan, waana ninka laga barto dhammaan wixii qarax iyo sidoo kale habka loo sameeyo, habka layskugu dhafo kiimikooyinka qaraxyada laga sameeyo. waxa uuna leeyahay mas-uuliyadda cid walba oo qarax ku dhimata koonfurta bartamaha Soomaaliya iyo dalalka la deriska ah. muuqaalka shargare oo like saar la wadaag saaxiibada aragtida qaybta hoose nagu reeb oo ku xirnaa wararka dhambalka wararka nabadgelyo. bismillaahi raxmaani raxiim. assalaamu calaykum daawadayaal, kuna soo dhawaada wararka dhambalka wararka. qodobada warkeena aad ku daawan doontaan waxaa ka mid noqonaya gacanka hadalka iyo buuqa ka dhacay golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya. waxaan idiin soo gudbin doonaa kolkii hore sida buuqu u bilowday iyo sidoo kale gacanka hadalkii ugu dambeeyey ee dhacay. hubka iyo gaadiidka dagaal ee culus ku biiray wejiga saddexaad ee dagaalka ACC iyo Somaliland, halkii ayuu ku dhammaaday wejigii labaad. waxaan idiin soo gudbin doonaa sida gaarka ah ee guulaha looga gaaray kaas.